والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan anaga oo ah shirkadda Horseed intii hore waxaan mudooyinkii hore oo dhan ka shaqeynay magaalada dhexdeeda waxaan hadda ku sugannahay meeshii qashinka oo sidii mudooyinkii ugu dambeeyay cabashooyinkooda la maqlayay magaalada qashinkii soo gaaray marka maanta waxaan isleeyahay haddii ololuhu awal magaalada uu nahay qashinkan meesha lagu subayo iyo uu tagay qashinku inaan u hagaajino ayaan ka shaqeynaynaa waa hawshii iyo dardartii Horseed ee cusbayd oo wali sii socota bulshada sidii aan daraadiyo markii horeba ka codsanaynay waxaan mar walba ka codsanaynaa wada shaqeyn iyo inay shirkadda isla garab taagaan taageero. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. ilaahay baa mahad iska leh goobtan aan ku sugannahay waa godka xashiishka ee magaalada la keeno runtii waxaan u nimidna waa dayactir godka oo haddaan la dayactirin godka ama aan god cusub la samayn xashiishkii wuxuu noqonayaa mid mataqaanaa fadara oo yani meel walba gaara si ay bulshada deegaankan ku dhaqan ama beeralayda ama xaafadahan u soo dhawaaday ee magaaladaas si ay uga nabad galaan hawsha godka ama xashiishka ku soo fidaya beeraha iyo deegaanka ayaan runtii u nimid halkan sidii aan wax uga qaban lahayn taasoo ku qotanto oo in aan dayactir ku samayno godka oo aan kaga shaqeyno cagaftaabaan maanta u soo korayno Horseed ahaan waxayna ka mid tahay hawl maalmeedka ay Horseed u hayso bulshada unbay ka mid tahay waxaana runtii idin ku guubaabinaya hadday tahay dadweynaha deegaanka ku dhaqan iyo xaafadahan soo durkay ee magaalada ku soo dhawaatay iyo kuwa magaalada dhexdeedaba in mar walba aynu wada jir u hawl galno nadaafadana la dhowro oo la ilaaliyo annagu ka Horseed ahaanna waxaanu hiiliyo hooba la garab taagannahay inaan u adeegno bulshadayada inta laga gaarayo god cusub oo laga qodi doono meel inoo jirta 13 kiiloomitir qiyaastii inta ka aan gaarayno inuu keenina dayacmo maaha godkii xashiishka magaaladu si uuna inooga dayacmin baan markaa hawshan aan runtii u fulinaynaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa adeegaan idin haynana waxaad kulley noqon doontaa mid aad dhammaanteen aan ku badhaadhno oon nadaafad iyo bilicsan boorama aan ku gaadhno insha Allah aad iyo aad baad u mahadsantahay.